بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا wanaagsan daawadayalkan waa ka wararka ku soo dhawaada qodobada idin hayno kuwada ugu waaweyn madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheikh Ahmed iyo Ali Guudlaawe oo u heshiiyay madaxweynuhu waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya shakigii ugu xoogana oo laga muujinayo dib u dhac hor leh oo ku yimaado jadwalka doorashada ee dhawaan laga gaaray magaalada Muqdisho baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug oo maanta fasax galay xilli muddo kooban ay ka harsan tahay waqtigii la soo dooran lahaa xubnaha golaha aqalka sare ee ka soo galaya deegaanada maamulkaasi taliska booliska magaalada Beledweyne oo faahfaahin ka bixiyay sida uu dhacay dilkii macallin dugsi Quraan haweeney uu qabay ay dhawaan ku dishay magaaladaasi Beledweyne wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo wasaaradda waxbarashada maamul goboleedyada dalka u madax banaysay qaadista imtixaanaadka shahaadiga ah ee dalka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo la xorle ka muujiyay xaaladda bini'aadanimo oo ay wajahayaan malaayiin Soomaaliyeed ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug oo howlgal wadajir ah ka sameeyay deegaanada dhaca koonfurta Galmudug ciidamada Kenya oo sheegay in duqeymo ay la beegsadeen saldhigyo al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose ay ku dileen in ka badan 10 xubnood oo ka tirsanaa al-shabaab qodobada ay qodobo kale daawadayaal warka ay ugu dhageysan doontaan aan ku bilownay daawadayaal madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Ali Cabdullaahi Xuseen Ali Guudlaawe ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheikh Ahmed oo sidoo kale gudoomiyaha midowga musharaxiinta kulanka Sheikh Shariif iyo Guudlaawe oo ka qabsoomay hotel airport ee ku yaala xeyndaabka xalana ayaa waxa looga hadlay xaaladda dalka arrimaha doorashooyinka iyo xiisadda ka soo cusboonaatay deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle inta uu socday kulanka ayaa waxa madaxweynihii hore ee dalka uga mahad celiyay Guudlaawe doorkii uu ka qaatay heshiiska doorashada ee kal hore lagu gaaray magaalada Muqdisho waxa uu ku amaanay kaalinta uu ka ciyaaray heshiiskii doorashada taas oo dalka u jiheysay dhanka iyo doorasho isla markaana ka badbaadisay jahawareer siyaasadeed iyo mid amniba si kastaba kulanka maanta ay yeesheen Ali Cabdullaahi Xuseen Ali Guudlaawe oo la qaatay madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheikh Ahmed ayaa imaanaya xilli uu maalmihii dambe magaalada Muqdisho ka waday kulamo la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo xalka qaadista waa xalka gaarista tabashada reer Hiiraan dhanka kalena taliska booliska magaalada Beledweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay falkii xalay lagu sameeyay Allah u naxariistay marxuum Umar Macallin Maxamuud oo ahaa macallin dhiga dugsi laga barto Quraanka Kariimka taliyaha saldhigga booliska magaalada Beledweyne laba xidigle Maxamed Maxamuud Rooble qorsheel oo shir jaraa'id magaalada Beledweyne ku qabtay xafiiskiisa si gaar ah ayaa sheegay in dhacdadan ay ka dambeysay xaaska marxuumka isla markaana ay socdaan baaritaano dheeraad ah sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidamadu ay qaadeen howlgalka dib falkaasi waxaana uu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen wiilal yar oo ay sheegay markaasi wiilal yar oo u sheegay in haweeneyda ay adeegsatay dhacdada sumeynta ah ee lagu dilay Macallin Umar Allah u naxariistay qorsheel ayaa sidoo kale xusay in cadaaladdaasi ay horteen markaasi in cadaaladda la horkeeni doono cid kasta oo ka dambeysay dilka marxuumka isla markaana ay natiijada baarista dib ka shaacin doonaan ugu dambeyn waxa ay dignin adag u diray ganacsatada isaga oo sheegay in la iibin karin sunta dadka disha iyada oo aan fasax looga haynin laamaha amniga sida ay markaasi inoo sheegeen xubno ka tirsan ehelada marxuumka waxa uu dhawaan guursaday haweeneyda sumeysay lamana oga sababta ku kaliftay inay disho dhacdadan ayaa ay ahayd mid argagax badan isla markaana dadka deegaanka ku nool xaasi gaar xaafadda Xawataako ee magaalada Beledweyne argagax ku abuurtay maadaama uu ahaa macallin dugsi Quraan oo aan looga yaqaanay xaafadaasi Allah u naxariistay Macallin Umar Macallin Maxamuud ayaa maanta lagu aasay gudaha magaaladaasi waxaana aaskiisa ka qayb galay mas'uuliyiin iyo dadweyne fara badan daawadayaal waxaad daawanaysaan ka wararka idinkaga markaasi waxaad daawanaysaan ka wararka barta aynu YouTube ku leenahay waxaan ka codsaneynaa inaad subscribe noo saarto sidoo kalena share dhahdo muuqaalkana like saarto si xogaha aan baahino ay u gaaraan bulsho badan ee Soomaaliyeed ciidanka Kenya ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegay inay duqeyn iyo howlgal ku dileen xubno ka tirsan ururka al-shabaab deegaanka jasiiradda Kudha ee gobolka Jubbada Hoose agaasimaha la dagaalanka argagixisada iyo amniga qaranka sidoo kalena markaasi tarxiiliya arrimaha sirdoonka geeska Afrika ayaa sheegay in duqeyn markaasi lagula beegsaday duleedka Kudha koloniya ay wateen al-shabaab lagu dilay 11 dagaalame sidoo kalena gaadiidkaasi la burburiyay waxa uu sheegay in duqeynta ay daba socdeen howlgallo dhulka ah oo ay ciidamada Kenya fuliyeen kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan Jubbaland oo ku socdaalay deegaanka Kudha ee gobolka Jubbada Hoose al-shabaab ayaa weli dhankooda ka hadlin wararkan ka soo baxay dawladda Kenya ee ku aadan in dagaalamayaal ka tirsan lagu dilay duqeyn hase yeeshee inta badan deegaanada gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada Kenya iyo al-shabaab wararka markaasi intaas hadii aynu ka ekeynana dhinaca kale wararka laga helayo gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay ciidamada Jubbaland ay xukun dil toogasho ah ku fuliyeen Hussein Aadan Cali oo lagu helay inuu kufsi u geystay gabar 3 sano jir ah toogashada ayaa ka dhacday degmada Doonley markaasi sida ay shaaciyeen mas'uuliyiinta deegaanka
waxaana goobjoog ah saraakiil ka socota dhanka maxkamadda ninka toogashada lagu fuliyay oo ay dhawaan gacanta ku soo dhigeen ciidamada ammaanka ayaa kufsi arxan darro ah waxa uu geystay gacalo Ismaaciil Cabdullaahi oo 3 sano jir ahayd iyada oo ugu dambeeyna lagu fuliyay xukunka lagu riday oo toogashada ahaa gabadha yar oo dhaawac daran ka soo gaaray kufsiga lagula kacay ayaa markii dambe u geeriyootay sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah ehelada sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in Xuseen Aadan Cali uu gabadha yar u ahaa adeer isla markaana uu qabay hooyadeed iyada oo wax lala yaabo ay noqotay in uu faraxumeeyo gabar yar oo hooyadeed qabo gabadha wuxuu markaas u ahaa adeer wuxuuna qabay hooyadeed wallaahi ilaa iyo haatan waa wax lala yaaban yahay sababta ku kaliftay inuu faraxumeeyo gabadha hooyadeed qabay ayuu yiri mid ka mid ah ehelada gabadha yar ee geeriyootay kufsigana loo geystay isla markaana aan la hadalnay dhacdada naxtinta leh ayaa hadalhayn weyn waxay ka dhawaa ay dhalisay waxaase dadka deegaanka ay soo dhaweeyeen xukunka dilka ah ee Jubbaland ay ku riday ninkii ka dambeeyay falkaasi Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay ka dhacaan tacadiyada ka dhanka ah dumarka sida kufsiga kaas oo meelo kala duwan loogu markaasi laga soo wariyay waxaana uu dambeyn Hargeysa iyo oo kufsi iyo dil la isugu daray haweeney waxaana ugu dambeeyay Hargeysa oo kufsi iyo dil la isugu daray haweeney lagu magacaabo Allah u naxariistay Maxamuud Hinda Cumar qaybaha dambe ee warkayga saaxiib yaal isla soo gaarnay hadii aynu eegno qodobka ugu dambeeya dawladda Koonfur Afrika oo markaasi Arbacadii dalbatay 25,000 oo asgari oo lagu xakameeyay rabshadaha ka socda dalkaasi oo galay maalintii 10aad xilli ay jiraan cabsiyo la xiriira cunno iyo biyeeri 27 qof ayaa la dilay in ka badan 1,200 oo kalena waxaa la xiray tan iyo markii ay rabshadaha bilowdeen kadib markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ay bilaabatay 15 bilood oo xabsi ah taas oo dhalisay dibadbaxyo isku rogay rabshado bilowga xoogan ayaa saameysay badeecadihii iyo qaadadkii gaadiidka ee gobolka Koonfurta Bari ee dalkaasi taasi oo kadibna saameysay dalka oo dhan dawladda ayaa sheegtay in 2008 dhacdo waa 208 dhacdo oo bilowga iyo burburin la diiwaan geliyay Arbacadii iyada oo ciidamada markaas ciidamada ay daadgureysay dawladda ay gaarayaan 5,000 oo asgari daawadayaal warkii ka wararka aad kala socoteen waa inaga intaa waxaan ka codsaynaa in muuqaalka la saarto share dhahdo sidoo kalena subscribe dhahdo ka wararka si xogahan baahino ay u gaaraan bulsho badan ee Soomaaliyeed waad ku mahadsantihiin markaas daawashada aad daawateen warkayga mahadsanidin